barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, soomaalidii reer miyiga ahayd ee dhaqaalaheedu uu xoolo raacashada ku salaysnaa waxaa sida bulshooyinka kale ee dunida dhex mari jiray qardoofooyin uu halganka noloshu u aanaysnaa. qardoofooyinkaas waxaa ka mida dilka, daqarka, dhaca xoolaha, faraxumaynta dumarka, aflagaadada iyo wixii gardarro ah oo inta qofkii qof kula kaco uu ku qoonsado. ha yeeshee run ma aha in qardoofooyinkaas dagaal qura lagu furdaamin jiray siday qabaan soomaalida aan taariikhda bulshadooda u dhundaloolin iyo weliba qaar ka mid a waxqorayaasha shisheeyaha ee arrimaha sinjiyada aadanaha. inkastoo daaqa iyo biyaha ay tolalku halgan joogta a ugu jiri jireen, xoolahana intay kala dhacaan ay xasaraadi ka dhalan jirtay, haddana ka badbadis ayay u ekaanaysaa haddii loo qaato dagaalku inuu ahaa waddada keliya ee dhibaatooyinka bulshada wax lagaga qaban jiray. waxaa jiray hannaan nabadeed oo ilaa maanta dhaqanka soomaalida xididdo adag ku leh, kaasoo ah hannaanka ergeynta loo yaqaan. qayb ahaan waa hannaan u eg waxa maanta diblomaasiyadda loogu yeero ee xidhiirka qaramada casriga ah saldhigga u ah. runtii cidina ma inkiri karto halganka adag ee nolosha reer guuraaga soomaalidu ku dhisan yahay inuu sababi jiray colaado hubaysan oo tolalka dhex mara, lagana yaabo intay dheeraadaan in guyaal dhowra ay jiitamaan. waxayse u badnayd colaadahaasi inay dhacaan oo keliya marka ay waanwaani dhacanto, markay waddooyinka nabaddu soo oodmaan ee dhinacyada ay wax kala galeen ay isu garaabi waayaan. siday xeerar uga lahaayeen guurka iyo arrimaha kale ee isdhexgalka bulshada ka dhasha ayay soomaalidii hore xeerar uga lahayd colaadaha iyo dhibaatooyinka kolba dhex mara sidii looga xaali lahaa. ka hor inta aan dagaal lagu tarsan ee in la aarsado aan lagu guddoonsan, wuxuu tolka gardarrada tirsanayaa isku dayi jiray inuu ergeyn wax ku helo si loo baajiyo dhiig daata iyo colaad baahda oo haddana daba dheeraata. waxay ka ergeyn jireen nin ama rag laga laayay magtood oo la siiyo, xoolo laga qaaday oo loo soo celiyo, ama xadgudub dhaqan xilood ku saabsan oo loo geystay in laga xaalmariyo. waxaa loo ergeyn jiray tol kasta oo Soomaali ah, iyada oo mar walba la fili jiray in ergeyntaas guul laga gaari doono haddii godob raagtay oo waanwaanteeda laga quustay aanay dhex ool tolka wax sheeganaya iyo midka wax loo sheeganayo. shir la isugu yimaado oo waayeelka tolku ku dhan yahay ayaa lagu go'aamin jiray in tol hebel erga loo diro, lana weydiisto xaqa ay ku sheeganayaan inay gudaan. ergada la dirayaase deera ka halqaad ma ahayne waxay ka goobnaan jirtay rag la miiray, magacyo waaweyn leh, doodyaqaan wada ah, aad ugu dhuun daloola xeerarka tolalka darisyada ah u yaal, taariikhda labada qolo ee wax kala galeenna in badan ka og. haddii aan la waayin, waxaa ergada inta badan madax looga dhigi jiray amaba la raacin jiray gabayaa magac weyn leh, nin reerka wax loo sheeganayo gabaya ku beerdulucsan kara, dood iyo dacwina wax kaga soo coshan kara. raggaas xulka ah markii la sooco ayaa lala ballami jiray. qodob qodob ayaa loo xusuusin jiray xaqa ay reer hebel ka doonayaani waxa uu yahay, inta uu tiro la eg yahay iyo waxaa haddii looga ogolaado ay la soo noqon karaan. ergadu waxay wakiil ka tahay tolka ay u dhasheen ee dirsaday, waxayna doontaa xaq ka wada maqan oo soo celintiisa lagu aaminay. badanaa go-aan aan la isku ogeyn ma qaadato, sidaa darteed waxay soomaalidu ku maahmaahdaa ergo wixii la farana waa geysaa, wixii la siiyana waa cuntaa. haddii kolka wixii ay sheeganayeen aan la wada siina qaar looga ogolaado, ergadu waxay ula noqon jirtay ciddii soo dirsatay ee ay ka dhasheen. shirka lagu wada dhan yahay ee tolweynaha ayay arrinta ku soo bandhigi jireen si goobtaas looga go'aamiyo wixii ay ergadu la soo noqotay, wixii laga yeeli lahaa.
kolba wixii guddoona oo halkaas lagu gooyo ayay mar labaad ergadu kula noqon jirtay tolkii wax loo sheeganayay iyo waayeeladiisa. tallaabadaa dambe cidda wax loo sheeganayaa wixii ay ka yeesho ayay nabadi ka dhalan jirtay ama ay colaadi ka aloosmi jirtay. xubin ahaan iyo wadar ahaanba hawsha ergadu waxay ahayd qaanta ay ku raar joogaan oo ama mag ah amaba hanti kale ah oo in la soo siiyo ay doonayaan inay si wacan u sheegtaanoo gartooda oo aan daldalool lahayn ay ka soo jeediyaan shirka tolka ay u ergeynayaan. taas iyada oo maskaxda lagu hayo ayaa waxaa jiray tilmaamo xubnaha ergada lagu dooran jiray, tilmaamo ay ugu weynayd oo adkaysiga dhibaatooyinka kala soo gudboonaan kara hawsha ay u socdaan. marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay ergada in la aflagaadeeyo, in la qadiyo oo aan dhowr aqoolood xoolaha loo gelin, iyo in wadaxaajoodka lagu raajiyo si ay inta u daaraan u caroodaanoo iyaga oo faramaran ay cidahoodii isaga noqdaan. dhibahaas oo kale inay dhici karaan iyada oo la garowsan yahay ayaa ergada loo sooci jiray rag adag oo ku tilmaaman dulqaad dheeraada xag ooga iyo dabeecad labadaba. mufti caana oo ay soomaalidii hore dulqaadka ergada ku tilmaantay ayaa waxay ahayd: erge waxaa loo dirsadaa nin kudkude gaajo uga adkaysi badan, dhagax qorax uga adkaysi badan, doofaar cay uga adkaysi badan, kurtunna dhaxan uga adkaysi badan. dhaqanka soomaalidu siduu ahaan jiray, ergadu kolkii ay soo gaaraan tolkii ay u socdeen waa la soo dhoweyn jiray, waxaana loo dugsiin jiray loona waabi jiray ardaayo ay habeenkii ku hoydaan iyo geeda ay dharaartii harsadaan. halkaas baa loogu geyn jiray cad iyo caano wixii loo hidin karo ilaa arrintii ay u socdeen loo yeelo ama lagu diido. tolka ergada loo yahay ee wax lagu sheeganayaa wuxuu diyaarsan jiray niman ergada timid dhigooda oo kala mid a dhinaca aftahmada iyo gar aqoonta, kuwaasoo ku dadaali jiray inay iska daafacaan waxa loo sheeganayo, iyaga oo had iyo jeer u fiirsanaya sheegashooyinka ergadu meelaha ay goldaloolooyinka ku yeelan karaan. haddii kolka ay diblomaasiyaddu tahay awoodda ah in labada dhinac ee wax ka dhexeeyaani ay si qabow u wada xaajoodaan, sidaasna is-afgarawaaga jira ay ku furdaamiyaan, soomaalidii raacatada ahayd waxay lahaayeen diblomaasiyiin aan si rasmi ah hawshaas loogu tababarin, ha yeeshee uu baray qaabka nolosha dagaalkooda. sidaa darteed baa shaqadii loo igman jiray ergadii soomaaliyeed loogu ekaysiin karaa amaba loogu magacaabi karaa diblomaasiyadda reer guuraaga. sidaynu soo xusnay, habka ergada lagu dhaqi jiray ee loo qaban jiray iyo habmaamuuskii ay ka heli jireen tolka ay markaa ergada u yihiin wuxuu ahaa hab wanaagsanoo inoo muujin kara qayb ka mid ah xiriirka bulshadii hore ee soomaaliyeed. iyada oo labada dhinac aanu midna si fudud danihiisa uga tanaasulayn ayaa haddana reerka martida loo yahay laga fili jiray ergadu inta ay la joogto inay xurmo u muujiyaan. sidaas ayuu dhaqanku ahaa, ha yeeshee marmarka qaarkood ayay dhici jirtay in ergada la xumeeyo oo hadal ama falal kale oo quursi leh lagula kaco amaba xataa la laayo. taasina waxay reebi jirtay utun aan harin iyo colaad ba-an oo kaba daraata tii markii hore ergada keentay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo barnaamij kale haddii eebba idmo iyo toddobaadka soo socda.